markii aan muqdisho phase 1 aan ku muqdisho caasimada markii aan phase 1 ka ku guuleysano waa xaqiiq phase 2 waa gobolada laakiin anagoo tixgelinayna codsiyada dhageystayaasha sharafta leh waxaan ku weydiinaa su'aalo badan oo sida aad dareemayso la soo weydiiyay marka waxa kamid ah tusaale ahaan dadkan jilaya ee filimkan maxaa lagu xushaacsan sida Doom 4 film dhaan balan qaadnay oo bangiyo la dhacayo waxay ka hadlaa filmkaas wuxuu ka hadlayaa dhalinyarada hadii shaqo la'aan ay ku dhacdo maxaa ka suuroobi kara wax kasta hadii ay wax barasho waayaan maxay sameyn karaan okay wuxuu kaloo film mulki meeradesh meere wadan markano ya hees markaa maqlo hada isaga jirtay laakiin aan hindi ahay sidoo kale heestooda calanka jirto filimada waxay ku soo daraan heesooda calanka saari sahami acha dosuta hamara ay quraan baad marka aad markaa maqashid oo dharkii militariga ee wataan ee calanka u dagaalamayaan waa xanaaqi waxa la safanay aktarada hindida waxa u maleysaa in xuquuqda hindida aad ay ka maqan tahay marka ana hadda dadka filimka heesta waxa filimka waxa ku jirto laba waa calanka duayno marka waxa raba sidaan ballanqaad u sameeyay habeennimadii xalay ahayd inaan galabta barnaamijka uu marti ugu yahay legend the one and the only man Mr. Hassan Zoya Hassan Zoya waa actor marka laga soo tago inuu YouTuber yahay inta badan waxa uu tarjumaa uu sameeyaa aflaan badan oo markaasi dad badan oo malaayiin gaaraya ay ku xiran yihiin galabta waqtigiisa qaaliga aan ka codsanay fursad ay inoo tahay inaynu galabta aynu ku casuuno barnaamijka daayirta danan xubin dan ayaan u baahiyay sababtoo waxa weeyaan waa dareemaysaa marka qiimaha uu ku dhaxleeyahay maamulka sare ee warbaahinta danan ee magaalada Muqdisho marka hore waan soo dhaweynayaa saaxiibkay Hassan Zoya oo inta badan dadka marka la fiiriyo aad ka u yaqaan Hassan Zoya taariikhdiisana ay sheegay in yaraantiisuba uu aad u jeclaa maadada computerka marka laga warhelay حسن صاي وانا ناس صاي لكن حسن علي شريف بدنا قلدنين يا سيف عن البارس بدنا هاي ما شاء الله ولو باي سدو ان هذا ما سنتهاي ساعدك دعي سنه ادقي دمان استياشا اما سومالوين مال بدونك جوجتو السلام يا ان sidoo kalena maamulka idaacada iyo TV-ga danan waa salaama runtiina aad iyo aad ugu maasantihiin annagana sharafeen noo tahay inaan barnaamijkan iyo waqtigan baydin la qaadano marka programka iyo wixii kalena adiga insha Allah faaqidaadooda nasii doono aad iyo aad u mahadsan tahay Hassan Zoya horta marka koowaad waan kaaga mahad celinayaa sida wacan adiga ogolaatay inaan galabta aan danan wada joogno runtii waxaan ognahay isla markaana maqaale nagu ah marka laga soo tago aflaanta asameysid laakiin galabta waxaan rabnaa xog aan saarno filimka Somali Military Force wadani oo aan ognahay soddonka bishan aynu ku gubi jirno oo maanta ay tahay 2020 shilin ahaan u saaran masraxiyada magaalada Muqdisho gaar ahaan guriga Samo Hall marka waxaan kugu soo dhaweynayaa arintaasi iyo sida waqtiga aad ugu bixisay asalkiisa meesha laga soo dhalaandiriyay dhageystayaashuna qadka u furan yahay su'aal kasta oo ku saabsan filimkaasi galabta waad weydiin kartaan Hassan Zoya Hassan markale filimkan dadkina fahansiiso meesha laga soo bilaabay asaaskiisii dadka jilaya iyo waliba muxuu ugu duwan yahay aflaanta kale waxaan ognahay in YouTube laga daawan jiray laakiin kan masrax ahaan loo daawanayaa aada u maasan tahay horta film markii laga hadlo wuxuu leeyahay yani tribes qaabo kala duwan uu leeyahay anaga waxaan sameynaa aflaam fara badan oo short filmi ah waa sameynaa filmo waa sameynaa hadda ka hor film waxa jiro leeyahay jiray turn back ama dib uga laabo oo cabsi ahay oo full movie ilaa hal saacad taabtay YouTube waa soo gelinay laakiin filimkan wuxuu filimada uga dubnaaday hatta uu naqanayo filimkii ugu horeeyay ee qaab cinema loo soo bandhigaya waxay tahay horta filimka sheekadiisa anaga muhiimad gaar ah oo yani noo leeyahay maxaa yeelay filimku wuxuu ka hadlayaa wadaniyada waxa dadka la baraya wadanka qiimihiisa sidoo kale waxa la xusayaa oo filimku uu ka sheekeenaya
shakhsiga askariga ah dhibaatada uu qabo nafsiyan iyo dulqaadka marka uu sameynayo markii uu rabo dalka iyo dadkaba inuu difaaco waxyaabaha isaga inteer oo his life ah oo yani uu qabo dhibaato ah iyo sida ay bulshada yani asaga easyga ay ku dhaliileysana runtii inaysan ahayn wax laysa siisan kara askarta laftooda iyo madaxda dowladda iyo mas-uuliyiinta dalka iyo weliba xataa saraakiisha qaar iyo inay ku jiraan dad 100% wadaniyaal ah dadnimadii ku dambeysa inay jiraanna sidoo kale filimku uu ka hadlaa dad dabeecadooda iyo dhaqankooda iska xun yahay fikrada khaldan yani sidoo kalena leh ama aaminsanna filimku uu ka hadlayaa sidaad ogtahayna sideedaba film waa message waa waxbuu tilmaamaa anigu fikir ahaan waxa aaminsanahay haddii aan dad aflaam sameynayo waxa hadda dadkeena u baahan yihiin waxay tahay horta inaan dadka fahamsiino wadaniyada horta duceysano saa ogtahay anaga yani kuma dhex baranin kuma barbaarin wadaniyad wax la dhaho حتى مناهجتي أنا وحكو برنا إسكولاتك ريالي ما إيسان لهين مادوين قارو ودنيا لماذا ما لهين الدنيا لكن الماء وح لقو برا ودنيا ده وحال برا ودنيا ده وناجي ده عنو قدل كان إنه ليه هاي علن كان بلوغ كان سببته أو علن ويا هاي ولا برا like in علن كاس وأساق واجبات كسارية إنه وناجي ولا برا waxa kaloo la baraa hadii walaalka uu khaldan yahay aday inaad saxdo oo aad ka daba khaldamin anaga marka fursad ee noo tahay hadana wali waa ognahay xaalka wadanka iska yahay laakiin anaga waxa ku dadaalina 100% in aan dadka barno wadaniyada in wax qurux badan tahay so we don't care dadka qaar fikradooda iyo dadka qaar wixii ayaga rabaan anaga ma daneynayno laakiin anaga waxa daneynayno waxay tahay Soomaalida hadda waxa wax ka bedeli kara wadankan waa dhalinyaro waxa anaga nagu xirana daawadu waa dhalinyaro kuwa aan rabna inaan wax fahamsiinana waa dhalinyarada marka filimka mar walba wuxuu ka hadlaa sidoo kale qabiilka like anaga qabiilana dilay qabiilana bahdilay qabiila heerkana gaarsiiyay qabiila adduunyada naga reebay filimku uu ka hadlayaa qabiil inaan la isku guursanin qabiil inaan la isku qaadanin qabiil inaan la isku jeclaysan qabiil inaan la isku wanaajinin hatta filimku uu ka hadlaa waxa ku sheegay oo ardayda iskuulaadka wax ka baranaya in wax lagu baro wadaniyada ya ayna sidoo kale xoogiisa filimka wadaniyada ciidanka taalan aad u mahadsan tahay Xasan soo yaa dhageystayaashu waxay naga soo sababta su'aashan kiilo waxay tahay sababtee looga dhigay qaab cinema waxa uga dhigana waxay tahay ogta filimada caalamka markuu film soo baxo dadka waxyaabaha u xiiso geliya filimkooda waxa kamid ah in wadankoodii lagu dhax boombooniyo like in cinema ahaan loogu daawado dadka muwaadiniinta daawadaan kadib international ahaan loo daawado official oo noqda marka filimkan wadani wuu naqadoona mid website-yada caalamiga waxyaabahaas qaataan laakiin waxa ka horeen doono filimkan Soomaaliya iskale Soomaaliya matalayso wixii dhan wada Soomaali luqadii waa Soomaali marka filimka asagoo luqadii Soomaaliga ku hadlaayo horta waa inay dadkiisii ka bogdaan ay daawadaan intay meel u xaadiraan film wadanka iyo dadnimada iyo Soomaalinimada lagu qiraayo horta ay daawadaan waa inta badan markii dib loo xasuusto ama dib loo milicsa Xasan waxa la tigi jiray shaleemooyinka waxa la soo dhigi jiray filimka caawa markaas kaartada marka inta badan waxay jiraan falan laakiin waxaad keentay hal abuur ah in film Soomaaliya dadka jilay Soomaaliyiin wadanka laga dhax sameeyo Soomaaliya taasoo ku amaanan tahay dhageystayaashan waxa la yahay numberkaad naga soo wici kartaan waa 5 barnaamijka macnihiisa horada kugu sheegay ballanqaadkeena oo ahaa in filimkaasi 30 bisha muhiim inoo ah dad badan ay daawan doonaan marka waxa rajeynaa dhageysi ugu horeeyay inaan fursad aan siiyo inta badan aan su'aalo badan ay diyaarsan laakiin waxa mudnaanta sii doonaa dhageystayaasha markaasi ku tixan barnaamijka dhageystaha ugu horeeyay soo qabanaya hallo assalaamu calaykum wa alaykum asalaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh galab lamida soo dhawow adaan qaldaneyn waa maxamed laki galabta waxaa barnaamijka marti igu ah Xasan Zoya
waayo filimada hadda ugu dambeeyay hadda markaas kaan jeclaa markaas waxaa u maleynayaa filimkii ugu dambeeyay arkisanayay in gabadhmiya maqaanisa tafriigta saastaan oo yirino dadyaaladeena inuu asiibirso ay tasaxayaan kabacdi baa waxay ogaahayo meesha taagan gabadha dadku yimaadaan qabanada meeshii basoo wixii bad brother aad iyo aad marka maxaa jeclaa lahayd inaad fikir ku darsato su-aalo aad ka weydiiso filimkan shaleemada saaran ee 3 bisha Guriyasamo Hall ee lagu wado in lagu wada daawado aad iyo aad in la saaro aad iyo aad aad baad u mahadsan tahay thank you brother thank you xasan sooyan oo mahad celinayna